booliska South Africa ayaa habeennimadii xalay waxa ay qabteen shaqo aad ay ugu farxeen Soomaalida dalkani Koonfur Afrika ka gadaal markii ay soo furteen ganacsadaha caanka ka ah dalkani Koonfur Afrika ee loo yaqaan Cabdiwaaxid Salaaxudiin waqooyiga duleedka magaalada Johannesburg xaafadda lagu magacaabo Adamfield Johannesburg booliska ayaa dul hooganaya guri looga shakisan yahay in ninka la muddada isbuuca uu ku jiro balse ugu dambeyn waxa ay ku guuleysteen booliska inay soo badbaadiyaan ganacsadahan ayaa waxa la afduubtay toddobaadkii ina dhaafay booliska ayaa imika wada baaritaan ku aadan afduubkani qaabkii uu dhacay iyo cid kulug leh dadkii la soo qabtay ayaa waxa kamid ah dad South African ah waxaana xiray booliska iyagoo ku eedeeyay inay faraha kula jireen fal dambiyeed qoyska ganacsadaha ayaa sidoo kale ka hadleen arintan dhacdadan afduubka ayaa ugub ka ah Soomaalida dalka Koonfur Afrika oo markii horeba la daala dhacay dhaca iyo boobka iyo banaanbaxyada rabshadaha wata ay kala kulmayaan dadka South Africaanka ah iyo waliba dadka kale Abdaxakiin Ibrahim Johannesburg Koonfur Afrika